dalka ugu xoolo badan sida Hormuud oo kale Goolis oo kale shirkadka waaweyn oo dahabshiil oo kale shirkadka ugu caansan ummaddu markay sideenan oo kale sida u burburta marka oo jawgaasi uu sida u yimaado haddii laakiin ama nus loo fuliyo ama ruuc la fuliyo ama aan waxba la fulininba dambigii waa inaga dhaxeeyaa marka loo baahan yahay dadka cuqalada ee waxgaradka ee tabarta leh oo aqligoodu fayow yahay waajibaadka marka haddaan la helin isxilqaan haddaan la helin tatawuc haddaan la helin aduu dadka marka waad ka dambi badan tahay tatawuc macnihiisu waxa weeye hawl aad adigu qabanayso oo adigu isu xilqaantay kaliya adiga oon dadka kale aadan uga sokaynin yani hawsha adigu aad qabanayso waa hawl dadka dhan u dhaxaysa oo marka adigu aad isu dirayso inaad ajir iyo sharafna ka raadsato aakhiri adduunba dadka iyo ummadda iyo dalkana aad ku anfacdo sidaas buu marka tatawuc u yahay yani waa hawl aadan lacagna ku qaadanaynin shahaado laguma siinaayo laguma dalacsiinaayo markaad qabato kadib waa dhici kartaa in lagu abaalgudo oo ummaddu intay ku garato inaad hawl weyn u soo qabatay ay ku abaalmariso laakiin adu markaad qabanayso isxilqaanka adaa isu diray waxaad u qabanaysaa hawl ummadii ka dayacan ama adigiiba aad rabto inaad wax ku ziyaadsato laba macno marka ayaan meesha soo gelinaynaa macna waxa weeye fiqigeena marka la yiraahdo tatawuca sida soonka tatawuca salaata tatawuc xaj tatawuca jira umra jirta sadaqo xoolo aan lagu lahayn oo adigu aan zaka ahayn oo iska bixinaysa jira oo kaas marka waxa weeye diintiiba qayb ka tahay oo midna hada salaada duhurka marka tukanayso inaad laba ragcadood ka hor tukato mesela waa sunna tatawuc way yani waajib kugu ma ahe afar ragcadood duhurka ayaa waajib kugu ah inaad laba ka dambaysiiso sunnadaas ay soo galaysaa tatawuc wuxuu faa'iido leeyahay marka la yiraahdo tatawuc wuxuu faa'iido leeyahay waxa weeye wuxuu gudanayaa hawl ummadda oo dhan u dhaxaysay ayuu gudanayaa waajibaad laga gaabshay oo ummaddu ka gaabisay buu gudanayaa waajibaad marka laga gaabsho ummaddu ay u dhimanayso ay u jiranayso oo dhulkeeda loo qabsanayo cadowga uu qabsanayo oo dadku ay jiro u dhimanayaan oo gabdhaha uur kale isku dhimanayaan waajibaadkaas oo dadku jahli uu dilayo waajibaadkaas marka ummadda dhan u dhaxeeya iyadana qayb buu ka noqonayaa isxilqaanku saadaradeed isxilqaan naftaada ku kooban ugu jira oo sunnadaas iyo ajiraas oo gaar ah uu jira isxilqaanka weyn hadda run ahaan oo aniga run ahaan markii aan aad u darso igu soo dhacaya kani waa mid fiican oo kulliga waan sameynaa ka naftaada oo ajir ku raadso oo sunnada tatawuca sabab laakiin midka weynanka badan oo khatarta ah waa waajibaadka ummadda oo dhan dul saaran oo laga seexdo isaga baab gaar ah yuu noqonayaa saadaradeed fahmiga isxilqaanku waa fahmigaas oo la rabo si quruxsan inaan isula fahamno isxilqaanku inuu yahay ummadaha waxa lagu dhiso طبعا maxaa ka dhaxeeya waajibaadka guud oo ah waajibaadka ummadda oo dhan laga rabo waajibaadka kifaaiya fuqahadu ay u bixiyeen iyo tatawuca ama isxilqaanka calaaqa ma ka dhaxaysa oo waajibaadkaas ma gudan karaa aduu isxilqaankaagu طبعا diinteena islaamka laba waajib ayaa fuqahadu ay qoreen saad u garanaysaan waajibaad waxa loo yaqaanaa الواجبات العينية والعينية وحالة وضع روح كستا واجب دول سارن واي واسيدا صلاة أو كلا سيدا صونك أو كلا سيدا حجك أو كلا المها أدو هذا الشيء يوالد كاغا عن تبرتا بدل لهين وحادو قبانيسو أو كلا ويه وحيالها سمركا وح روحي توس أطابنايا يعني هو يا أبو يا المها إيا واجبات كان أركان الإسلام أو كلا وحول أديك دول سارن طبعا marka qaarkood waajibaadka alciidiyadaas waajib ruux kale uusan qaban karin adoo taagan mesela takhtar baa tahay ruux isku dhimanaya ayaa la joogtaa sida salaada oo kale ayay taasi noqonaysaa ruuxi isku dhimanayay oo mesela gabadh uur leh oo isku dhimanaysa adoo kaliya ka umulin kara waajibkii salaada oo kale noqonaysaa
sida salaada iyo soonka iyo xajka loogu leeyahay baa lagu yeelanayaa ruux kale oo meesha wax ka qaban kara markuuna jirin waajibaat alcayniya isu bedelaysaa qaybta kale ee fuqahada waxaa loo yaqaanaa ay nabareen waxaa loo yaqaanaa waajibaat alkifaa'iya waxaa laga wadaa waajibaad ummadda oo dhan dul saaran ruux gaar uma dul saaran marka ummadda oo dhan buu dul saaran yahay waxaa ka mid a matalan waxbarasho ummadda oo dhan in dadka wax la baro ummadda dul saaran tahay dalka in la difaaco ummadda dul saaran tahay baddaas aan ku noolahay iyo webiyada iyo biyahaas waa inuu jiro ummadda oo dhan buu dul saaran yahay marka waxaa la rabaa qaabkii biyahaas dadku ayna u halaagi lahayn in la sameeyo dadka oon baadilayo abaar baa maanta jirta oo mushkilaa jirta sidee biyo loogu samayn ummadda oo dhan bay dul saaran tahay magaaladan nadaafadeeda dalka oo dhan bay dul saaran tahay hawshaa guud ee ummadda dhan dul saaran marka oo ruux kasta oo caqligiisu uu fayow yahay oo ama qaangaadh ah mararka qaarkood carruurta xataa way soo gelaysaa ayaa waajibkaas waxaa la yidhahdaa alwaajibaat alkifaa'iya la yidhahdaa ummadda oo dhan buu dul saaran yahay marka fuqahadeennu marka ay taa marka ka hadlayeen waxaa la yidhi waxaa laga wadaa kifaayada haddii waajibkaas ummaddu intay si isaga habayso qaab loo sameeyo oo dadkaa loo xil saaray ay ku filaadaan way ku filan tahay waaye waajibaat alkifaaya waa saas waaye intii kale dembigu ka dhacayaa baynamaa ka kale dadkoo dhan hadday tukadaan adiga salaaddii waa laga rabaa farqiga u dhexeeya marka waa meeshaas waaye waajibaat alkifaa'iya waxaa weeye hadday ini samayso way ku filan tahay yakfi waaye hadday ini samayso oy intaasi ku filaato way ku filaanaysaa dembigii baa inta kale ka dhacaya waajibkaa isagaa marka yani dawladaha matalan hadda maanta jooga dabdamis baa jira dabdamiskaa waxaa loo sameeyey gurigii gubta yani oo dab qabsado inuusan dad ku sii dhimanin yaa la rabaa khasaare intaa ka weyn inuusan keeninna waa la rabaa marka ciidan dhan oo dabkaa damiya ayaa loo sameeyey gurigaas ciidan baa loo sameeyey adduunyadu waxay leedahay ciidan badeed bay leedahay oo markabkii badda gala iyo ruuxii biyo qaadaan iyo waxaasoo dhan waa mas-uuliyadda ciidanka adigu marka shaqo kuma lihid maxaa jira dawladdii ummaddu intay dawlad isku darsatay oo xoog la isku darsaday ayaa waxaa la gaadhay heer la yidhahdo ciidan ku filan waxaasaa la sameeyey dalka in la difaaco waa waajibaadka kifaa'iga ay ku jirtaa caynigaas marka ma ahe waa kifaa'iga waaye waa midka ummadda o dhan laga rabo waaye haddii marka ciidan wataniya inta la sameeyo ciidankaasi uu ku filaado dalka ruuxii gurigiisa iska jooga marka iyo ruuxii aroos ku jira iyo kii tijaaro ku jira iyo waxaasoo dhan waa hawl ka dhacaysa ummadda inteeda kale waaye waa hawl ummadda inteeda kale ka dhacaysa waajibaadka marka kifaayiga oo dadka dhan saaran haddii intaan ishabayno oon xoog isku darsanno magaalo kasta nadaafadeeda kambani loo sameeyo kambanigaasi uu ku guulaysto ood aduu lacag iska bixiso kambanigaasi uu ku guulaysto inuu magaalada nadiif ka dhigo waajibka adiga qayb baad ka gudanaysaa laanna dawladdii iyo sharikaadkii iyo ummadda wax isku darsatay culayskii iyo dembigii saasuu ruux uga dhacayaa laakiin magaalo kastoon degannahay iyo guri kastoon seexanno markuu wasakh yahay marka magaaladeenna jidadkeenna markay wasakh yihiin waajibka isaga ah ruux kasta ayaa dembi ka soo gaarayaa saa daraaddeed dawladuhu saa inta isaga habeeyeen ayay waxay ku guulaysteen inay hawshooda si sax u qabsadaan hawshii marka la rabay ummaddu inay isku darsato markay ummaddu la kala tagaan oo waajibkaa ay qabsan kari waayaan ayaa waxaa dhacaysa mushkilo weyn ayaa ku imaanaysa dadka oo dhan oo ah waajibkii laga gaabshay ayaa ruux walba dembigiisu saaraanayaa mana ka dhacayo ilaa laga guto oo si sax loo guto waajibka marka kifaayiga ee noocaas ah haddii loo yimaado bulshadeenna iyo dawladaheenna hadda inoo dhisan iyo kuwii hore u dhisnaa intaba haddii loo yimaado su'aasha koobaad waajibka kifaayiga ah ma guteen oo hadda wax inoo habaysan oo nadaafadda dekadaheenna iyo dekadaheenna dib in loo hagaajiyo iyo
garoomadeena iyo magaalooyinkeena iyo nadaafadeeda iyo amniga iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo waxaas oo dhan ma intaan wax isku darsanaba inoo toosan yihiinoo waajibkaas intaan ka wada qayb galay baan iska toosinay oo dad lagu og yahay miyaa jira mise ma jiro jawaabtaas waxaan u malay anu inaan bixiyo ma u baahno oo waxaan wada ogsoonahay inuusan maanta jirin hadday wax jiraanna waa waxyaala yar yar waaye waxyaalaha yar yarka marka waajibkii ma ridayso laana fuqahadeenu si u tacriifiyeen baaba waxayba tahayba idaa qaama bihi albacdu saqata cala albaaqiin hadday qaar ay si fiican u fuliyaan idaa qaama bihi albacdu waxaa la haddii si saxa loo fuliyo waaye saqata alithmu cani albaaqiin dembigu wuxuu ka dhacayaa intii kale haddii laakiin ama nus loo fuliyo ama ruuc la fuliyo ama aan waxba la fulininba dembigii waa inaga dhaxeeyaa ummaddu markay sideenan oo kale sidaa u burburta marka oo jawigaasi uu sidaa u yimaado waxaan isleeyahay marka loo baahan yahay dadka cuqalada ah ee waxgaradka ah ee tabarta leh oo caqligoodu fayow yahay xataa hadday xubnahoodu naafa yihiin caqligaa ku filan laana taluu bixin karaa isagoo 90 sano jiruu tala bixin karaa caruurta dhalinyarada ah ee 10 iyo soo gaadhay talay bixin karaan dadka yaryar iyo dadka waaweyn ba isxilqaankaas in la geliyo ayaa la rabaa saa daraadeed isxilqaankii marka waajibka laga gaabshay ayaa wuxuu u soo riixayaa waajibaadkii dadkoo dhan ka dhaxeeyay ruux walba inuu ku noqdo fardu cayn sida salaada oo kale dadka gaar ahaan qudrada xoogga u leh yani مثلا dadka maanta wax yaqaana oo cilmiga bartay oo dadka wax bari kara iyaga si gaar u waajibkaasi intuu ka soo gudbo ummadda oo dhan kii waajibka ku ahaa ayuu iyagu u soo gudbayaa markaas uu sida salaada oo kale ayuu fardu cayn ku noqonayaa meesha marka waxay u baahan tahay in aad la isula fahmo ani takhtar baanahay magaaladan aan joogaa magaaladan inta takhtarkeeda joogta jirrada dadka dilaysa iyo khatarta caafimaadka iyagu si gaar waajib ugu yahay dadka u kaalmeyn kara xoolaha leh mesela oo isbitaalada dhisi kara si gaar inay xoolahooda meesha ugu bixiyaan baa waajib iyo gaar ku soo noqonaya saa daraadeed intii xoog u leh marka waajibka ayriga inay qabato dadka ulama sinna ee way uga sokeeyaan oo waajib wuxuu ku noqonayaa waajibaadkii arkaanul islaamka oo kale ayuu u soo gudbayaa markaas takhtarada maanta jooga magaalo kasta iyaga ayaa waxa laga rabaa inay waajibka gutaan iyagoo la kaalmaysanaya dadka intooda kale dadka macallimiinta oo cilmiga bartay oo dadka wax bari kara oo wax yeeshay balligu anni wala aayabu nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkaana waxa laga rabaa inay dadka iyagu wax baraan baa laga rabaa waajibka ummadda ula sinaayeen ma aha ee waa waajib kifaa'i ma aha ee waajib aynu u soo gudbaaya marka aduu dadka marka waad ka dambi badan tahay dadka xoolaha leh oo ilaahay xoolo uu siiyay zakada fardu cayn bay ku tahay waa inuu iska bixiyo ma loo baahna in la barbariyo waa inuu bixiyo zakada laakiin xoolihiisa in kamid ah ayaa mushkila haysta dadka xoolaha leh sida kuwa cilmiga ay mushkila u haysato oo takhtarada ay mushkila gaar u haysato oo dadka caqliga badan ee odayaasha ah iyagu ummadda hogaamin kara ay u haysato mas'uuliyad gaar ah dadka xoolaha lana xoolahooda in kamid ah ayaa waxay u soo gudbaysaa sida zakada oo kale noqonaysaa yani maalkaaga aad haysato haddii ruux baahi ay dilayso haddii ruux jira ay dilayso haddii ruux jahli dilaayo in iskuulaadka iyo isbitaalada iyo dadka baahan ee jiiraankaaga xoolahaaga zakadii aad bixisay kuma filla zakadii aad bixisay kuma filla xoolahaagu waxay noqon sida zakada oo kale ilaa bulshadu ay baahidiisa aan wada tirno ayay adiga ku noqonaysaa ani mesela waxbaan bartay haddaan waxbarashada ka shaqayn waayo on dadaalka ugu weyn waxbarashada dul dhigi waayo dambiilaan noqonayaa adigoo sharikaadkeenan hadda waa weyn oo la yaqaano oo dalka ugu xoolo badan sida Hormuud oo kale Goolis oo kale sharikaadka waa weyn oo Dahabshiil oo kale sharikaadka ugu caansan ilaahay alxamdulillah yani dalkan u khidmeeyay ee sharafta leh iyo kuwa kale ee faraha badan sharikaadkaas iyo dadka xoolaha leh xoolahoodaas waxa laga rabaa marka inay ummadda ku dhisaan dadka cilmiga leh waxbaan yarahay barbartay waxaan dareensanahay inaan dambiile ahay baan dareensanahay maxaa jira
waajibkii la rabay inaan qabanin baan dareensanahay aan dadaalo laakiin waajibkii la rabay ma qabanin dadka marka intaan anu bartay ugu yaraan in ka fiican bartay ama anoo kala ah ama in ka yarba yaqaana sidaas oo kale oo dadka xoolaha leh ay dambiilayaal maanta dalkeena u yihiin baan annaguna dambiilayaal u nahay marka waa la wada yahay waajibaadka marka ayniga ah waa isla fahamsanahay inta arkaanu saamka iyo aabaha la masruufo iyo hooyiye waa inta waa isla fahamsanahay laakiin waajibaadkii kale ee alkifaa'iga ahaa oo ah haddii inay samayso inta kale dambiga ka dhacaya lama samaynin markaan la samaynin marka oon dawladdii la kala tagnay oon xoolihii la kala tagnay oon waxba isku darsan weynay ayaan dhammaanteen dhulka gallay waajibaadka marka haddaan la helin isxilqaan haddaan la helin tatawuc haddaan la helin ma qabsoomaayo saa daraaddeed waajibka isaga ee xoogga badan oo ummadda oo dhan ka dhexeeya waxa lagu daaweyn karaa inaan dhammaanteen isxilqaano ama innaga in ka mid isxilqaanto la sameeyo qaabkii ummadda baahideeda loo tiri lahaa ama loo yarayn lahaa inaan isu xilqaano oon camal tatawuca la nimaadno oo ummaddu markaa inagu dayato sidaasaa marka waxaa isoo dhexgelaya marka camalkii tatawuc ahaa isxilqaanku wuxuu noqonayaa marka isxilqaan aad khiyaar u leedahay markay mushkiladu weyn tahay ma jiro isxilqaankan laga sheekayn oo tatawuc fuqahadu ina bartay waa meel nabadahoo dawlada ka jireenoo waagaasoo dee dawladda dhanba ummadda iyadu u xoog badnayd bay ka sheekaynayeen laakiin maanta waxaan ka sheekaynaynaa dadkeenna oo maanta boqolkii wax 10-20 ku dhow gabdhaheenna ay uurka isugu dhimanayaan oo gabadhii oo dhiigkar qabtan cidna ogeyn inta camaliyo lagu sameeyo ay horka dhimanayso ilmihii uu dhimanayo dadkii duqayda ahaa jirooyinka qabeen aan cidna ka warramin jahliga aan cidna ka warramin isxilqaanka marka aan ka sheekaynayno waa waajibaadkii ummadda dul saaraa inaan inagu isu xilqaano hadda dawlad inoo habaynaysana ma ku guulaysanin weli duqaydeennii reeraha u talin jirtayna iyadiina waxaa weye laguma guulaysanin inay hawshii ummadda ay ku abaabulaan dadkii wax bartayna intay isu tageen oo dad gabadh iyo wiilba dad noqdeen sharaf leh oo isxilqaama ummadda mayna ku hogaaminin saa daraaddeed waxaa la rabaa inaan aad isu dhegaysanno isxilqaan muxuu yahay isxilqaan waa shaqada keliya oo dalkeenna waajibka ina saaran lagu gudan karo waajibaadka hadduu awal hore inoo wada dhexeeyey maya ruux walba meesha uu isagu awoodda iyo kartida u leeyahay ayuu intuu ka soo riixo tuu dadka ula sinaa ayuu isagii wuxuu keeni u leeyahay salaadii lagaa rabay iyo xajkii lagaa rabay oo kale weeye ha dambaabinoo inaad diintii ku socoto haysu malaynin ninka maanta maal badan leh oo dadku baahi u dhimanayaan maalkiisu xaaraan buu isu bedelayaa ninka intuu wax bartay dadka bedeli waa cilmigiisuna cilmi aan baraka lahayn oo lagu ciqaabi isu bedelayaa odayga kaaba qabiilka oo isinka inoo ah ama suldaan ama malaaq ama beeldaay wuxuu rabaa ahaado hadday waajibka dadka inay heshiisiyaan oo dagaalada damiyaan oo dadka isu keenaan hadday gudan waayaan dambiilayaal bay noqonayaanoo waajibkii laga rabay maysan gudanin saa daraaddeed jawgaasoo dhan wuxuu ina barayaa isxilqaanka ama tatawuca maanta aan ka sheekaynayno xagga diinteenna khiyaar uma lihin oo inaan inagu isxilqaannay oo aan leenahay wax fiican baan qabannay ma aha keliya maya sidii soonka iyo salaada iyo xajka iyo aabbaha iyo hooyada baahidiina intaad siinaysay la mid tahay iyo carruurtaada saa daraaddeed waajibka isaga waxaa la rabaa inaan aad isula fahamno labadii waajib ee fuqahadu waagay dawladda islaamka ee xoogga badan jirtay saa u kala qaybiyeen ay u kala qaybiyeen waajibaat alcayniya oo ruux walba laga rabo iyo waajibaat alkifaa'iya oo waaga ay dawladdu gudan jirtay ama dawladdu ay dadka ku qasbi jirtay in la sameeyo yani mesela markii dalka la soo weeraro dawladda waajibkeedu waa maxay maya dadka oo dhan rag iyo dumar ilmo yar iyo ruux kasta oo hub qaadi kara iyada amri jirtay markaas waa ciidanka hadda la sameeyo oo kale waa sidii bay dawladaha hadda caalamka u sameeyaanoo ciidanka iyada amri adiga marka ciidankii lacagtiisiina waad bixisay saacaddii loo baahdana hubkiina waad qaadi oo dalka xuduudiisa difaacaysa labadaa waajib marka way soo dhexgaleen fuqahadaas hore sida u kala qaybiyaan maanta ma u kala qaybsana dalkeenna sida salaada magaalo kasta nadaafadeedu waxay ka dambi badan tahay salaada in laga tago maxaa yeelay salaadana ruux keliya ayaa loo ciqaabayaa haddii magaalada nadaafadeeda oo magaalooyinka intay gubtaan maalin walba 100 milyan ay gubanayaan oo inta dadku dhimanayaan intaasoo dhan ciqaabteeda ayaan wada mudannahay waxaan su'aashan marka ku soo ururin lahaa
dadka wax bartay ee fuqahada ah ee kitaabada masaajidda ka aqrinaya dadka waxaa la rabaa inay sidaa ugu fasiraan waajib kasta oo ummadda ka dhaxeeyay oo ummaddu ay gudan kari weyday ama ay u samayn kari weyday qaabkii ama institutionadii ama hay'aadkii fulin lahaa ay u samayn kari weyday sida caalamka kale u samaynayo dembigaasi dhammaan wuxuu ka soo tegayaa inuu dadka ka dhaxeeyo ama uu yahay wax oo la sugayo maya dembigaasi ruux kasoo taabanaya wuxuu soo gaari marka darajadii wuxuu soo gaarayaa fardul aynkii buu soo gaarayaa ee fardu kifaayah khiyaarka aad u lahayd waagi ummaddu xoog lahayd ma aha maanta gabadha isbitaalka isku dhimanaysa dhakhtarka gabadhaas nafta u huri waaya waxa weeye waxa uu la mid tahay uun arkaan islaamku ka tagay bay la mid tahay uun aad baan marka ugu faraxsanahay jazaakumullah khayr su'aashaas waxaan rajaynayaa inaan aad isula fahamno waajibaadka in la guto waa wax ajirna laga helayo ciqaabta ilaahayna aan rajaynayna inaan kaga nabad galno aan isku baraarujino nin walba iyo tabartiina dambiga waa loo kala qaadi nin walba iyo intuu qabtana ajirka waa la kala qaadi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh